saddexdan gabdhood ee idin muuqda iyo wiilka dhalinyarada ah waa dhalinyaradii aan dhawaan ka sameynay sheekada isla markaana hadal hayn badan ka abuurtay baraha bulshada waxa lagu murmay inay isqabaan ama inay sheekadu tahay mid aan waxba ka jirin haddaba baaritaan dheer ah oo عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامة دمان ولا لها كحرا channel كيف فرطون على مالك سعدون كجوكتين يعني رجينا خير عافمات فرحت بش إبراقينا كنا ولاتين إن شاء الله إن الحمد لله ويذان عطكيو اسمه مقال وعلى كلا باهي وعلى كلا حنوصة وعلى كلا مشغولة إن شاء الله تكدب حركينا إنا سيدا يظهر قصور نقندون هدو إلهي راهدو إذن كان هي فرتا إيجا جيدين أنا سوى نقطينا إنك رجينا وضاعي وإيلودين عمليها لو ما نقف كدي ويسين سوق جلسين سوق قالك إن إسكت عفو oo sidii hore isii ka fiican isku la soo joogna rajayna insha Allah maanta waxa ka hadli rabaa video maalmo dhahan dhan ku jiray suuqa aan damcayna mar hore ka hadlo haddana markaan arkay wax meesha ka socda inay been cad tahay baa aniga beenta inta badan waa laga shidaa aan faraha ka qaaday videogaas waxa wiilkii sheegay saddexaas inuu isla qabo hal qol ay wada degan yihiin Soomaalida wax badan ay isaga qaldan waayadan dambeeto Soomaalida waayadan dambe wax badan baa isaga qaldoomay fiyuuska iyo caannimada meel aan loo baahnayn iyo meel aan loo meeldayn in laga raadiyo hadda la keenay wiilkaas marka hore taba iyadoo la arkay qof walba uu aqli leh oo aqli u saaxiib u dareemayay inuu waxay sheegayaan saddexda gabdhood iyo wiilashaas ay been tahay oo hadday warku run u yahay marka hore waa gabdho naag niman qabaan yihiin wajiga banaysan lahayn waa marka koowaad marka labaadna dadku guri hal qol macquul ma naagaha ugu fiican hataa kaal naag lagu qabo hal qol wada deganaada naag keenaysa ma jirto بلاغة وده دجنه قف بقلب الدجنية حتى وصورته كلا كيس عن ليجي هالقلة وده دجنه هالقص لو قلة دجنه هالقلة أنا سلسة حنايم متبهبين ببحضة واحدة اللي معقولة ولا أركي مركا إن ضدك أو برنامج ده نوع عاصة بريها عند مسؤول اللي فيه أو ناقة يسق من ناقة كدجنا يو إن نمن أنا قبل نمن كدجنا يو وحنا هنا شرفت سمعت هذا ما يقول ذي فيوز يوتيوب يوحنا لوجه وكل هذين أولا إلهي كعب صدق marka xigtana sumcadiini sharaftiina fiyus xuna heshiin waligiin fiyus inaan helin hal qof ha idin daawada idinkoo runta sheegaysiin oo runta ka hadlaysiin intii kun qof idin boqol kun qof idin daawan lahayd oo beena u sheegi lahaydeen sababta meesha dad wax lagu daawada aadan ku helin ama fikirkaaga uu yahay inaa wax qaldan keentid ama wax maalintaas ku kala kacay bas keentid u joogtid waligaa horumarka aragtidna ma gaaraysid adigana beena lagu baranaa because qofkii maanta ku tiri saddex xaasa qaba oo YouTube-kaaga ama meesha rabtay baraha bulshada ku kala kacsatay biri marka video kala soo dhigto runta kaga hadlaysid kuma daawanay wuxuu leeyahay iga wada kii beenta sheegay wax warkoodi hore la waayay leeyahay marka waxa la beentaada hore runtaada dambe u darantaa maaha marka insha Allah wax rajeenaa dadka Soomaaliyeed oo bariyahan dambe iska bartay hadalada maalayacniga ah oo wax macnaha ku fadhinin oo wax qiimo aan lahayn inay iska daayaan gabdhaha yararka oo mustaqbalka leh idinkana mustaqbalka iskaga dhuuminina waxaan waxba idin galeen waxbana idin noqonayn oo biri oga ay doontiin waarid baa in la dhashay walaalaha idin dhashay dad ehelaa leedihiin asxaab baa leedihiin beentas amaanta sheegteen wax badan inay ku weysiina macquul marka dadka waaridka idin dhalna niyad jabin idinkana maskaxdaas ka qaadina insha Allah waxaan rajeenayaa in hadalkaygaas aad maqli doontiin laabkii luuqa waxaan igaga soo hadlayana wili u diyaarsan إن شاء الله لايف أوصل في الإنسان ده هدوء إلهي هذا فرطون تيجي هو قصة نقد دانا وقعت هذا ده فيديو أنا لاقي إثارتين الله هذا مبرو هذا أودم هاتسنتين دمانتين بارك الله فيكم saddexdan gabdhood ee idin muuqda iyo wiilka dhalinyarada ah waa dhalinyaradii aan dhawaan ka sameynay sheekada isla markaana hadal hayn badan ka abuurtay baraha bulshada waxa lagu murmay inay isqabaan ama inay sheekadu tahay mid aan waxba ka jirin haddaba baaritaan dheer ah oo aan sameynay wiilka dhalinyarada ah malabsade iyo gabdhahan aan ku sheegnay inay yihiin xaasaskiisa maxaa ka jira gabadheeda ugu horeyso weyneed waa tana waxa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax waxaaska weyn ma sha Allah gabadhaas ku xigto waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waxaaska labaad gabadhii saddexaad oo guriga dambeystiin waa tana waxa ay ahayd 7 bishan Febraayo oo ku beegneyd axadii tagtay markii aan baahinay sheekada ahayd in wiilkan oo loo garan og yahay malabsade ay saddexdan gabdhood ay yihiin xaasaskiisa isla markaana ay ku wada nool yihiin hal guri tan iyo baahintii sheekadooda
dad badan ayaa su'aalo iska weydiiyay jiritaanka iyo dhab ahaanshaha sheekadaasi. Ha yeeshee TV-ga Universal oo mar kale u kuurgalay arrinta saddexdan gabdhood iyo wiilkan ayaa soo ogaaday in sheekadu ay ahayd mid ay kooxdan ka lahaayeen ujeedooyin gaar ah. ujeedkii ugu dhalay in aan arrinkan sameeyo waxay ahayd maxaa la yiraahdaa maadaama aan aniga iyo gabdhaha aan asxaab isku dhow ama dad walaala oo xiriir fiican ka dhaxay aananay aan waxaan ku wada balana waxay tahay in aan waxa way aan bulshadii aan wax cusub loo hor imaano marka maadaama aan si fiican maskaxdeena tugu jiray aan fikirno in waxa noo soo baxay in aan arrinkan ku dhaqaaqno si aan anagana waxa way hadal hees badan uga dhalato oo waxa way nugula mashquulo intaas ay naga ahayd laakiin waxa hadda aan isdhihi karnaa mistake koowaad aan gashan waxay tahay in aan TV-ga been aan u sheegno soo si aysan qorshihi nooga dhicisoobin oo san warkan ayagin ee dhan wareysiga ma qaadeen oo been u noqday aan wax walba matalaada si xataa aan familkeen qaar kamid oo familkay qaar kamid aan ku dhaadeen soo wacan ilaa ninka waryaana wareysanayo waa nin yaqaan aniga yaqaan familkayga yaqaano marka familkay markuu soo wac waxaan ku dhahay ninkaas maxaa la yiraahdaa waxa ka jira ku dheh wuu qabaa ku dheh waa ku ognaa ku dhaha saas ogeed maadaama uu u rumaystay familkayga ogeed igu wareystay marka kadib markii waxa waay oo wixii oo dad badan soo falceliyeen ama dad badan igu dhageen oo waxa meel walba la soo warwareejinaaye waxa wixii waa laga daba tagay. Maxamed Ciise Koona oo ahaa wariyihii soo bandhigay sheekadan qabsatay baraha bulshada isla markaana abuurtay dood bulshada dhexdeeda ah oo mar kale u kuurgalay dhab ahaanshaha sheekadii uu horay u tabiyay ayaa sharaxay sida uu ku aaminay jiritaanka sheekadooda kadibna uu ula wadaagay bulshada. marka hore xasan aan la xiriiray waxaan aqaan ehelkiisa dad maaragtay aad isugu dhow yihiin dadkaas markaan la xiriiray kadib waxay ii xaqiijiyeen arrintu inay jirto hadda qof maaragtay qaangaar ah oo dhalinyaro ah oo muslim hadii wixii lagu dhaartana ma ogtahay wixii maaragtay inaad aaminto ku qasban tahay waayo qof ma dhigi karto waxaan waa been maadaama cadeynta ugu weyneed oo ahayd inuu waxaan gurigii ku keeno wixii jira ku tuso gabdhihii ayagoo maaragtay guriga wada joogo si dad maaragtay is yaqaan muddo isla noolaa kale u dhaqmaayo jikadii ku wada jiro arrintaas marka waxay ii cadeysay aniga maaragtay in waxaan ay jiraan inta kadib markii barnaamijka saasaan u duubnay oo u imid xaafadiisii kadib waxaan maaragtay haddana maaragtay soo wacay dad badan arrinta ka hadlaayo kadibna waxa yimid shaki arrinta inaysan jirin ah guriga marka la ku soo laabanay si arrinta maaragtay wax xaqiijino maadaama waxaan u sameeyay warbixinada ay tahay wax bulshada maaragtay faa'iido u leh ama isleenahay bulshada way ka gadmayaan markaan guriga nimid iyo meelihii kale aan soo marnay waxaa noo cadaatay in arrintan ay ahayd arrin maaragtay dhalinyarnimo ay geysay saa darteedna wax walba ay ku gaari karaan hadafkooda iyo wax ay rabeen ay u sameynayeen. Sumayo, Caasho iyo Maymuun oo mar kale nala hadlay ayaa sheegay sababta ka dambaysa in iyagu aan la qabin ay sheegtaan in ay yihiin marwooyin. aniga xaas la qaba mihi aniga wiilkan Xasan Cabdirashiid oo jeedin dad walaalo oo asxaab isku dhow ee wax walba ka wada dhaxeeyaan waan nahay laakiin inay naagtis ma noqon karno ina beentaas sheegno waxa nagu kalifay aad TV-ga noo imaado wareysi noogu yimid ma dhigi karna anaga waxa jileynay naga bax ileen ayaga ma og ina wax jileynay xaqiiqo run ay u heestaan sidaas la ajligeeda u sameeyna aniga ina xaqiiqo uga dhigno midaas waa ka raali gelinayaa 100% TV-ga waxaa leeyahay 100% adduun weynaha dadka ku nool dadka idaawanaya intaan waxa u soo duubay clipkan waa iga raali gelin waxa soo dhan waxay ahaayeen yani wax anaga soo abaabulanay amsana aan isku soo raacnay laakiin midaas wax ma ka jirto Soomaha anaga waxaan gabdho walaalay hal qolna mooda seexano gurigeena anaga ma deganin Xasan Cabdirashiid waa wiil walaalkeen maalintii oo yani wareysiga oo wiilasha inoo imaanayeen xitaa wallahi si aan u muujino gurigan ina anaga aad deganahay maalintii oo dhan digsiga la raadina qaandad waa la raadina cusbad waa la raadina wax meel lagu ogyahay ma jiraan Soomaha marka waxa waaye wax yar oo jilina iska ahayn Soomaalida ina mashquulina iska rabnay waxa soo dhan waxay naga ahaayeen wax matalaad iyo waxa anaga YouTube-keena ugu talagalnay waxa anaga soo abaabulay qorshe markii hore anaga keensanay fikrad markii hore anaga keensanay in saddexaas matalno oo maaragtay la isla qabo waxa anaga gabdhaha walaalahay anaga fikrada keensanay oo YouTube-keena ugu talagalnay iyo Malabsade ayaa ii sheegay in riyooyinkiisa ay ka mid ahaayeen mar in uu noqdo saddexaas leh ha yeeshee aysan wali u suuro galin laakiin uu qorsheynayo. Maxamed Bulbul, Universal TV, Muqdisho.